Assalaamu calaykum walaalayaal ku soo dhawaada darsigeennii ee maanta. Maanta darsigeena waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano order by. Order by keywordka loo yaqaano wuxuu soo dooranayaa column-ka iyadoo lagu base gareynayo rows-ka. Resultka noo soo laabanayo ama natiijada noo soo laabanayso ayaa waxay noqonaysaa in loo soo qaabeeyo qaab ascending ama descending ascending iyo descending waxaa loola jeedaa tusaale haddii meel data ay kugu keedsan tahay data walbo waxay ku bilaabanaysaa alphabetically A ama B ama waxay noqotaba ayay ku bilaabanaysaa. Haddii sida ay u kala horeeyaan alphabeticalka A iyo B iyo C haddii soo kala hormariyaan waxa ay qaabkaasi ascending order waay. Haddii alphabetically xarafka ugu dambeeyo alphabetica waxa waaye Z waaye. Haddii Z ay ku soo bilowdo oo kor u soo wadana waxa loo yaqaanaa descending order ayaa loo yaqaanaa. Waxay ku soo bilaabaysaa meesha ugu dambeyso waxay u soo wadaysaa meesha ugu sareyso. Tusaale halkan saa ugu jeedidba ascending order-ka waa sida tiradan 1 2 3 4 5 6 waay. Descending order-na waa 6 ayaa lagu soo bilaabayaa ilaa iyo 1 ayaa loo soconaya. Qaabka kan ayay u shaqeynayaan descending order. Haddii ay tahay alphabetically-na A B C D E F G ayay u soconaysaa hadday ascending tahay. Haddii descending tahayna waxay ku soo bilaabaysaa meesha ugu dambeyso waxayna keenaysaa meesha ugu hooseyso. Mararka qaarkii PostgreSQL resultka waxay noogu soo bandhigaysaa qaabab kala duwan. Marka qaabka order by waxaad u isticmaali kartaa si aad ugu qaabayso rows-ka adigoo u fiirinayo column-ka value ku keedsan column-ka. Haddii adiga aad u taxayso ascending haddaad u taxayso oo siday u kala horeeyaan normally haddaad u isticmaalaysana ascending ayaad u isticmaalaysaa. haddaad rabto inaad hoos ku soo bilowdo oo kor u soo wado sidii tusaalihii hadda aan soo aragnay amal markaasna waxaad isticmaalaysaa descending order. Sharciyada ay isticmaalayso order by ayaa sida tan ah. Halkan saad ugu jeedidba waxaa lagu leeyahay soo dooro column-ka koowaad column-ka labaad waxaad ku soo doorataa table-ka magaciisa saas yahay. Order by adigoo u qaabeynaya ama u taxayo column-ka 1 iyadoo lagu base gareynayo column-ka koowaad. Marka either waxaad u samaysan kartaa ascending ama descending taad doontidba aad u isticmaali kartaa. Laakiin waxaad ogaanaysaa ascending iyo descending waxaad isticmaalaysaa kaliya marka query-ga aad dhamayso. Dhammaadka query-gaaga ama statement-iskaaga ayaad isticmaalaysaa. Dhexda ma gelinayso, bilowgana ma gelinayso. waxaad isticmaalaysaa dhammaadka query-gaaga sida halkan aad ugu jeedidba. Marka hore waxaad soo dooranaysaa column-ka koowaad iyo column-ka labaad iyo table-ka aad ku soo dooranaysaa ayaad meeshan soo gelinaysaa. Kadib ayaad leedahay order by u tax column 1 anagoo isticmaalayno ascending sida 1 2 3 ama A B C D u tax ama Z ku soo bilaaw oo axis u tax. Marka doorka yeelanayo adiga dooranayo. Marka isticmaal ASC waxaad u isticmaalsaa si aad ugu taxdo ascending order. DESC waxaad u isticmaashaa si aad axigeeda aad u samayso. Haddii aad ugu tagto meesha iyadoo blank midna aadan qorin ASC oo ascending order ama DESC oo descending order midna aadan qorino iyadoo banaan meesha ka tagtidna as a default waxaa la isticmaalayaa ascending order. Tusaalooyinkan oo caadi aan isticmaalno oo na keena programkeena pgadmin4 keena. Halkan waxaan ugu keedsan datadeeni. Marka DVD rental makeen waxaan leenahay query tools keena sida caadada noo ahaydba meesha galaynaa saan u qorno code-keena ama statement-keena ama query-geena. Halkan marka waxaynu leenahay marka hore waxaan soo dooranaynaa oo leenahay
select waxaan isticmaalaynaa halkan customer table-ka ayaan isticmaalaynaa. waxaan leenahay select everything wax walba ku soo dooro. markay ku soo dooranaynaa waxaan ku soo dooranaynaa from customer-ka noogu soo door. marka halkan wax walba waxaan ku soo dooranay customer table-ka. customer table wuxuu kooban yahay customer ID, store ID, first name, last name, wax badan ayuu kooban yahay. marka halkan waxaan isticmaalaynaa anagoo isticmaalayno customer table-ka magaciisu yahay customer-ka anagoo isticmaalayno halkan waxaan samayn karnaa. marka waxaynu leenahay waxaad soo dooranaysaa leenahay wax walba waxaad ku soo dooranaysaa customer table-ka. marka halkan fiiri ujeedka aan leenahay saa u ogaano. marka waxaynu leenahay order by waxaynu leenahay order by. marka waxaan leenahay first name-ka kaliya. halkan saa u jeedid table-kan wuxuu leeyahay first name iyo last names iyo email iyo information badan ayaa ku kaydsan. hadda waxaynu rabnaa first name kaliya inaan diiradda saarno. marka order by waxaanu leenahay noogu soo tax aase. marka maxaan isticmaalaynaa descending waa isticmaali kartaa ama ascending ayaad isticmaali kartaa kaa doontidba. marka hadda waxaan isticmaalaynaa aase ascending ayaan isticmaalaynaa. marka ujeedaa halkan first name marka waa ujeedaa waxa waaye xarfaha ugu horeeyo waa a. haddaad hoos u sii wado a waxaa ku xigo b ayaan rabnaa inay noo soo baxdo. hoos u sii soco waad ujeedaa b ayaa ku xigto. marka sida tan ayay u soconaysaa a b c d. marka haddaan doono table-kan wuxuu leeyahay wax la yiraahdo store ID ayuu leeyahay. haddaan rabno store ID kale inaan isticmaalana waan isticmaali karnaa. waxaynu leenahay select everything from waxaynu leenahay maxay customer-ka inoogu soo door wax walba order by. marka waxaynu leenahay order by store ID. order by store ID ayaynu leenahay. hadda haddaanan meeshan iyadoo blank ama waxba lagu qorin aan ka tagno either ascending ama descending midna aanan ku qorin waxay isticmaalaysaa as a default ascending ayay isticmaalaysaa. marka waa ujeedaa store ID ayaan isticmaalaynaa. halkaan saa ujeedidba waa inta nambara ee ugu soo horeysa waa 111 waaye. hoos u sii soco 1 haddii laga gudbo waxaa la rabaa 2 inay soo baxdo ama numberka ku xigo. marka waa ujeedaa 1 haddii lagu soo gudbo store ID-ga 2 ayaa bilaawanayo. sida tan ayaynu ku soconaysaa. mid kalena waan samayn karnaa oo inta aan rabno inaan soo doorano halkan waan kusoo magacaabi karnaa. select mission waa kusoo magacaabi karnaa anagoo samaynayno ama anagoo halkan aan kusoo qorayno aan kusoo dooranayno. select statement-ga anagoo kusoo dooranayno oo waxaynu leenahay kana u baahanahay maxaa waaye store aan u baahanahay halkan waa kusoo mention garayn karnaa ama halkan waa kusoo dari karnaa. waxaynu leenahay select store ID comma ayaynu leenahay. mid kale ku xigo waxaan leenahay first name comma waxaynu leenahay last name. intaan waxaad noogu soo doortaa ayaynu leenahay customer table-ka anagoo u qaabeynayno store ID-ga. halkan marka waxaynu leenahay anagoo u qaabeynayno waxaynu leenahay first name. marka halkan waa kusoo mention garayn kartaa adigoo waxaad dhihi kartaa store ID-ga waxaad soo doortay store ID-ga magaca koowaad iyo magaca labaad waxaad ku soo dooranaysaa customer-ka adigoo u qaabeynaya ama u taxaayo as store ID column-ka la yiraahdo adigoo yani ku base gareynayo first name-ka. marka halkan haddii aan soo doorno aan dhahno run aan dhahno waa ujeedaa halkan first name-da waxay ku bilaabanayaan a ayay ku bilaabanayaan. halkan saa ujeedidba ilaa iyo a ayay soconaysaa kadibna b waaye saas ayay u soconaysaa. halkan sidoo kale 1 waaye ilaa sidaas ayay ku soconaysaa sheekadu. halkan marka labadaba waa isticmaali karnaa oo halkan waxaan samayn karnaa meeshan oo aan dhahnay waxaad u qaabaysaa ama soo taxdaa as store ID soo tax anagoo isticmaalayno descending. marka halkan isticmaalnay halkan waxaa kaloo aan isticmaali karnaa
store ID-ga markii la joogo waxaad u soo qaabeynaysaa ama u soo taxaysaa as a descending ayaan dhihi karnaa as a descending u soo tax first name-kuna waxaad u soo taxdaa as a ascending sida tan waa isticmaali karnaa labadaba isku meel waan ku isticmaali karnaa waa ujeedaa store ID-ga sida halkan ay ujeedid waxa way as a descending one waayo number 1 kuma bilaabin waa ujeedaa number 2 ayuu ku bilaabay waa 1 iyo 2 ku keedsan marka qaabkan ayuu u socdaa marka ay imaado first name-da sidooda way waxba iska bedelin a iyo 3 hadii la dhaafo b sidaas ayay u soconaysaa last name-da sidoo kale last name-da marka waxa way halkan saa ujeedidba halkan last name maana soo dooranin hadaa doonto waa ku dari kartaa last name-kuna waxaad dhihi kartaa as a ascending ama descending u sameey ayaad dhihi kartaa marka mid kale waan sameyn karnaa oo muhiim ah inaad ogaato haddii aad doorato first name-ka iyo last name-ka oo aad waxa waaye programka aad radgarayso weli way shaqaynaysaa sida tan waaye halkan soo fiiri marka waxaan dhihi karnaa oo aan sameyn karnaa halkan waxaan dhihi karnaa select first marka waxaynu leenahay halkan soo dooro magaca koowaad iyo magaca labaad waxaad ku soo doorataa customer table-ka waa table-kan oo customer table loo yaqaan ku soo dooro adigoo u taxayo marka waxaad leedahay oo ku base gareynayo taxida as a store ID adigoo ku base gareynayo marka store ID-ga waxaad soo taxaysaa as a descending soo tax tira aanan isku xigin soo tax ama qaab oo yaani cagsi ku ah ascending-ga first name-na waxaad soo taxaysaa as a ascending ayaad leedahay marka halkan marka soo dooratay waa ujeedaa halkan first name-da waxa loo soo taxay as a ascending ayaa loo soo taxay sida alphabetically normal ah ABC ayay u taxan yihiin ayaa lagu soo bilaabay B saas u soconaysa last name-da waa ujeedaa waxa waaye saas uma taxano marka labadaba waa isticmaali kartaa oo labadaba waxaad dhihi kartaa ascending ka dhig ayaad dhihi kartaa waa ujeedaa sida tan waa isticmaali kartaa oo waxa waaye halkan sida loo isticmaalay waxa leedahay select soo dooro magaca koowaad iyo magaca labaad waxaad ku soo doorataa customer table ku soo dooro adigoo u qaabeynaya u taxaayo oo ku base gareynayo column-ka loo yaqaano store ID-ga as ascending si alphabetically isku xigaan first name-kuna waxaad dhihi kartaa oo aad dhihi kartaa as ascending asna u soo dooro ayaad leedahay sida alphabetically ama tana bedeli kartaa oo store ID-ga waxaad ka dhigi kartaa as a descending ayaad ka dhigi kartaa labadaba way shaqaynayaan midna ascending waa ka dhigi kartaa midna descending waad ka dhigi kartaa marka darsigeena maanta wuxuu ku koobnaay qaabka loo isticmaalayo order by oo taxida waxyaabooyinka markii oo daatada la joogo sida loo kala tixi karo haddii data badan meel kugu jirto aad rabto as alphabetically A iyo B iyo C loo soo taxo hadaa rabto waxaad isticmaalaysaa ascending ayaad isticmaalaysaa haddii hoos lagu soo bilaabayo z lagu soo bilaabayo kor loo soo wadan hadaa rabtina descending ayaad isticmaalaysaa marka darsigeen maanta intaas ayuu koobnaay waxaan filayaa wax badan in laga fahmay aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum